كادي السلام عليكم أيان الله يا أصحاب تاي سود وهذا هرت سود وهذا لما أنتي سود وهذا سود وهذا وحبان عايز سود وهذا قال هذا والله يريتش كا سود وهذا تقول ديانك الصومالي ده ولا عدمي يسوي قليل صفيها سود وهذا وسير عبدي waxaan la hadlayaa maanta wasiire iyo xukuumadda soo dhawaada may dhici jirin tan oo kale may dhici jirin soo dhawaada waxay ardaydan la leynayaa waxay wasiiradan gacanta qaadayaa yaa may dhici jirtay may dhici jirin ولا أنا يدعي شنو ولا وسيره قعمت قاضية ما يدعي شنو وسير أرد يدليه ما يدعي شنو waxay hablahan shuruuda lagu xidhayaa xataa dee shuruudda buuxin weyda way iska tegaysaa miya soo bata reer jigjigo soo bata gaar ahaaneed waxaan la hadlayaa mudane mustafa ilaahay cimrigiisa ha raajin ninkaana waan la hadlayaa madaxweynaha dowladda deegaanka waan salaamayaa ciidanka deegaanka soomaalida waan salaamayaa shacabka deegaanka soomaalida waan salaamayaa dhammaantiin waan salaamayaa waxaa dhacday inama yaro reesha goosha in la dilo la jigdilay wasiiradan gacanta qaadaya may qaadi jirin mustafaw maantana waxaa dhacday inuu askari liu boolis ah oo hadda la garanayo caddaan ah waan sheegi wallahi magaciisa xataa ayuu nin wasiire cadhuuf ku tufay maanta arrinta iga yaabise waa arrinta iga yaabise nin liu boolis ah kursigoo iga kici jiran wasiirada ciidanka mustafaan la hadlaya daanu wasiiradu askariga soonka jooga askari qabalayga ayaa si toosa ayuu uga amar qaadan jiray yaa takabaru wasiirku maantana waxay maraysaa inuu dhahdo puu askari labisan hadda black driska xiran waa sharaftii dhamada deegaanka in habliya raacas casaa ee deegaanka u dhashay ee gobollada u dhashay ee meel kasta u dhashay ee hadda deegaanka u dhashay ee waxaan kuri ubixii deegaanka ahaa inta saa loo eego inay wasiiradu maanta oo la dhaqmaan si sharaf darro ah oo ta ka hadli weydaa waxaan loo baahnayn aanay shaqo xataa qabanayn dabadda laga celinba diiladoo hadda waa tu dhugma tikaysto shaqo doonayso oo wasiirka u timid oo baalagudhe u timid ayaa la odhanayaa inaanay xafiiskaba loo sii dayn baa laga yaaba dadka xataa dumarkii oo loo sii daynba labada habeenimo ama afarta dambe habeenimo gaariga wasiirku isagoo dhilo wata ku soo maraya may la soo mari jirin inta ciidanka bal iminka ciidanka hala weydiiyey booliska saacadday doonaan bay magaalada iyagoo dhilooyin wata dhex marayaan may dhici jirin taasina mustafa may dhici jirin askari lii boolisa in candhuuf lagu tufaana may dhici jirin run baanu kuu sheeganaa anagu iyo ilaahun baanu ka cabsanaaya wasiirka waxaa sameeyeyna wallahi inaan iminka kuu soo sheegi
codkayga codka ku xigaan kasoo sheegi. waxaa ma si eegaanu dadka wax soo qorqorayo hadalku markuu ii socdo inaan qoraalka aan jawaab ka bixiyo inta badan ma jecli. wax run baanu sheegnaa anagu, wax run baanu dee sheegnaa. may dhici jirin Mustafa madaxweyne in askari sharaftiisa lagu ciyaaraa, may dhici jirin inuu nin wasiiri arday dilo, may dhici jirin inay saacad ay doonaan dhila qaataan oo gaadhigoodu magaalada ku dhex afaran, may dhici jirin. waxyaabo fara badan baa jira oo dhaliila. waxaanu ku leenahay mudane wasiirada noocaa sameynaya waa 4 ilaa 3 ilaa 5 waanu kuu soo sheegi anagu bartanaanu kaaga soo sheegayay halkan anagu ma leefkaanu soo saaray maana dee soo saarin dee leefka anagu wuxuun baana loo soo sheega anaga taasaa maantana dhacday. inamada rashay gooshka ee lagu khaldamena madaxweyne waxaanu kaa codsanaa inaad waajibka iyo sharcigaba kusoo dhaweyso ciddii saa ku samaysay. sharciga inaad noo horkeyntaan kaa codsanna harto. wasiirka askariga ku gafay inaad sharafta ka qaadana waanu kaa codsanaynaa ood bartaa lagaga qaado sharafta iyo xilkaba. ninka askariga laga bisan in lii booliska candhuufta u quuray waxaanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne inaad sharciga hor keento. haddii kale mooraalka baaba'aya, dadnimada baaba'aysa. waxa weeyaan xorriyul qowlku maaha sida khaldan ee loo isticmaalayo, maaha sida xukuumaddu ay ugu tala gashay looma isticmaalayo. si waxaa loo dhaqmayaa akhlaaq xumo ah. waxay maamulkan ciidanka xataa waddada ku jiraya. sawkii guddoomiyaha gobolku gaadhiga uu wato nooga degi jiray, sawkii wasiirku kursiga nooga kici jiray, sawkii yaa qofka bini aadamkii markuu ku xurmeeya baad xurmeynaysa adiga. xurmadu halkay ku jirtaa waa isfahanka. ma taallo xurmo, sharafi ma taallo. waxay u dhimanayaan waa dalka, waxay u dhaamacayaan waa dalka, waxay u soo jeedaan waa dalka, waxa lagu hurdaa waa iyaga. in candhuuf maanta lagu tufo raalli kama nihin daanu shacabkana anagu. wallahi inaan raalli ka hayno, bilahi inaan raalli ka hayno. madaxweyne wasiirada saa u dhaqmaya imika si deg dega waana qiimin loo kala oo aad la xisaabtantaa oo hoggaanku la xisaabtamaa oo maamulka la xisaabtamaa. in sharafta ciidanka meel lagaga dhaca waa khalad. in sharafta shacabka meel lagaga dhaca waa khalad. wasiirre waxaa jira qofkay doonayaan mooyaane qof kaleba u soo gelin. ma wasiir baa kaasi? qofkuu doonaya mooyaane qof kaleba u soo gelinba. ma wasiir baa kaasoo kale? dadka waxaana laga yaabaa inaad weliba u jeceshahay ood u haysato inuu daacad umadda u yihi. wasiirku wuxuu wasiir ku yahay shacabka. wasiirku marka lasoo doorto ee lasoo xulo ee uu cod ku imaado ayay fiican tahay baarti kolleyba. laakiin Ethiopia ma taqaana waa qofku waa magacaabis badda waa magacaabis. dowladdu baa keentay mudanaadna dowladdu baa ku keentay kor un baad kaga timid deegaanka. kuwana adun baa keeno magacaabay. kuwaad magacawday markaa ayay ku tumanin dee shacabka iyo dowladda kale ee kaa hooseysa yaanay ku tumanin dee ileen la isku durduriye maahe. ya madaxweyne markaa waxaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa walaalahayga reer Jigjiga, ardayda, odayaal dhaqameedka, mas-uuliyiinta ciidanka, kuwa ka hooseeya, kuwa kasii hooseeya, dhammaantiin waan idin salaamayaa. waxaan idin leeyahay salaan sharaf leh ayaan idin salaamayaa.
waxaana soo gaadhsiiyey oon codka ku xiga haddii shaqo laga qaban waayo nimanka wasiirada ee ardayda laayay ee ciidanka ku khaldamay ee sida xun u dhaqmaya ee sida foosha xun lagu dhaqmaya haddii aanu mudana madaxweyne mustafa aanu sharciga aanu horkeenin annagaa kasoo hadlayna halkan annagaa xafiiska shacabka hadde dad adigu iyagu xafiiska wasiirada yihiin annagaa xafiiska shacabka wasalaamu calaykum